sanadkii 2019 ayaa waxa uu ahaa wasaaradda maaliyadda sanad ay xaqiijisay samaynta isbeddello dhinacyada daahfurnaanta maaliyadda, dib u habaynta ilaha dhaqaalaha, dhismaha xarumaha dakhli ururinta iyo wada shaqaynta hay'adaha caalamiga ah ee maaliyadda. sanad fiican buu ahaa, ma odhan karo sanad fudud buu ahaa, laakiin sanad aan dhididnay buu ahaa, dhididkiina wax dhalay ayuu runtii ahaa. waxaa dhacay waxa weeye waxyaalihii aan filaynay oo dhan si wanaagsan ba u dhaceen. budgetka miisaaniyadda ka mid a oo habkii sidii ay ahayd loogu talagalay ay u dhacday. waxaa ka mid a in dakhligii waddanka gudihiisa naga soo gelayay sidii loogu talagalay weliba kasii fiicnaaday. waxaa ka mid a shuruucdii dalkan ee la doonayay in lasoo sameeyo oo lasoo wada sameeyey lana ansixiyey. waxaa ka mid a beesha caalamka oo sidii ay ugu talagaleen inay noola shaqeeyaan iyo si kasii fiican noola shaqeeyan iskula falgalay oo meel isla soo gaadhnay. waxaa ka mid a dayn cafistii oo sidii aan ugu talagalay u socota iyo si kasii fiican. waxaa ka mid a kusoo gabagabeynaya waxa weeye in wax walba sidii sanadku markuu bilaabmaya aan ugu talagalay iyo si ka fiican ay u dhaceen. kor u qaadista dakhliga ka soo xarooda gudaha waxa uu ahaa waxyaabihii ahmiyadda dheeraadka ah ay siisay wasaaradda maaliyaddu, taas oo si toos ah uga muuqatay miisaaniyadda qaranka. 2017 wuxuu ahaa dakhliga guduhu 142 milyan. 2018 wuxuu ahaa 184 milyan. hadda wuxuu noqonayaa 221 meelaha inuu noqdo ayaa lagu talagalku yahay. haddaanu halkaa gaadhina waa ku dhowaanaya. waad garan kartaa markaa siday u socoto. si fiican ma laydinla shaqeeyaa. korjoogtaynta iyo la socoshada habka loogu adeego dadweynaha wax kala soo dega dekedaha iyo garoommada ayaa aad u badnayd sanadkii dhammaaday. hadday kala duwanaadaan dib baa loo tiraa. sharciga maaraynta maaliyadda iyo sharciga furdooyinka ayaa waxa ay ka mid ahaayeen shuruucdii ay wasaaradda maaliyaddu 2019 ku guulaysatay in ay golayaasha dalku meel mariyaan, kuwaas oo uu madaxweynuhu saxiixay. sharciyada ugu horeeya ee aan ka shaqaynay waa ka dakhliga maamula oo weliba annaga iyo dowlad goboleedyada ka soo wada shaqaynay. sharciga iibka qaranka, sharciga furdadaha, sharciyo kale oo iyaguna annagu anaan samayn laakiin wasaarada kale sameeyeen aad iyo aad muhiim u ah wax ku oola oo ay ka mid yihiin sharciga muxuu ahaynaan ganacsatada iyo haga ma garanaysaa iyo kambaniyada haga ayaa ka mid ah. marka shuruucdii wixii loo baahnaa sanadkan si fiican baa loo soo gabagabeeyey. dhisidda xarumaha canshuuraha iyo ballaarinta xarumaha wasaaradda ayaa ka mid ahaa waxyaabaha ay hoggaanka wasaaradda maaliyaddu ay xaqiijiyeen. 5 ayaan imika samaynay. 5 xarumood baan samaynay. waxaa marweyn ka mid tahay oo shangaani ka mid tahay oo hodan ka mid tahay oo hawlwadaa ka mid tahay ayaan samaynay. qaarkood waa furnay, qaarkoodna in yar baa nooga hadhay. waxaan ku tala jirnaa intaba inaan samayno. waxaa kaloo aan samaynay xaruntii cashuuraha, ciidanka cashuuraha ee turbataariyada la yidhaahdo. xarun dhan baan samaynay oo ma garanaysaa ayaguna ciidamadaa nala shaqeeya oo nala falgalo maalin walba wada shaqayno. ayagana waan dhisnay. waxaa kaloo aan dhisnay xarun kale oo cashuuraha iyo maamul wanaagga maaliyadda lagu baran doono. asaguna dhowaan waa la furi doona haddii ilaha yidhaahdo. waxaa kaloon dhisaynaa wasaaraddii maaliyadda qaybtii hore u dhisnayd ee Sweden dhistay mooyaane qayb kale oo aan bilownay baa jira sanadkan bilowgiisa oo imika dhammaad ku dhow. marka waxaan ku tala jirnaa waxyaalaha loo baahan yahay inay cashuuraha iyo maamulka maaliyadda sare u qaado dadka uun maahe waa facilitieskuna way ku jiraan meesha maaragta iyaguna dhammaad bay ku dhow yihiin.
shaqada adag ee madaxda iyo howlwadeennada wasaaradda maaliyaddu qabteen ayaa keentay in kalsooni badan lagu qabo hannaanka maaliyadda Soomaaliya oo taageero ka helay dalalka iyo hay-adaha dhaqaalaha saaxiibka la ah Soomaaliya. waxaan kugu bishaareynayaa waddankiinu ka dhaqaale badan yahay 2 sano ka hor in qof walbo dawladda u shaqaystay mushaarkeeda qaadato in ugu yaraan adduunyada ay aqbashay in dib habaynta dhaqaalaha waddankiina ay shaqaysay bisha Febraayo haddii Ilaahay yiraahdana aan ka wada shaqeyno uu dalku qarka u saaran yahay in deynta laga cafiyo. sanadkii 2019 ayaa wasaaradda maaliyaddu waxa ay dardar gelisay habraaca kumeel gaarka ah ee iibka qaranka kaas oo ka dhigaya in ay hay-adaha dawladdu ay dhammaanba qandaraasyadooda mariyaan iibka qaranka kaas oo lacag ku dhow 4 milyan iyo bar dib ugu soo celisay qasnada dawladda marka loo eego heshiisyadii hore. iibka qaranku waa qaanuunka qeexaya habka wax loo iibsanayo, habka dawladdu wax iibsanayso. dawladdu wax ku iibsataa waxay dad ka soo urursadeen dadku wada leeyihiin. marka waxay iibsanayso iyo hadday aqal dhisanayso iyo hadday wax samaynayso oo ay lacagta dad ku leeyihiin isticmaalayso, dadka Soomaaliyeed ee baac mushtariga ganacsatada wax dhisa ama wax iibiya waa inay qayb isku mid ah ku leeyihiin. 100 kun ka badan tahay wixii 100 kun ka yarna iyagana sifaalo loogu talagalay baa jiro, iyadana la oranayo dadka noocaas oo kale ka soo qayb galaan la oranayo. wixii laakiin inta ka badan imikada waxa dadku u sheeganay waxa weeyaan hadday 100 kun lacagtu ka badan tahay inaanay wasaarad wax doonaysa oo iyaga contract aanay ka aqbalin, laana waxa ka dambaysa wasaaradda maaliyadda iyo wasiirada mas'uulka ka ah halka ugu sareysa ee arrimaha inay eegaan ay tahay hadhow waxay oranayaan contractgaasi ma jiro ay oranayaan. marka wixii 100 kun ka badan waa in wasaaradda lala soo xiriiraa. wasaaradda waa in departmentka ku shaqada leh, procurementka ku shaqada leh, iibka qaranka ku shaqada waa inuu ka caawiyaa, waa inuu waraaqaha la eegaa, sida loo shaacinayo waa inuu la eegaa, waa in iyagu soo ansixiyaan. marka dadku soo dalbadaan halkan waa in la isku keenaa, waa in committee la saaraa iyadoon la furidda waa in la isla wada ogaadaa ya evaluationka iyo systemka qiimeynta waa in la isla wada ogaadaa, hadhow cidda la siinayo waa in la isla wada ogaadaa. We continue to raise domestic revenue, improve national. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarunta qaramada midoobay ee New York waxa uu ka hor cadeeyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Soomaaliya in ay ka soo baxdo dhammaanba shuruudaha lagu xiray deyn cafiska. Poverty is one of the greatest pain a human, a people, a nation can suffer. saboolnimadu waa xanuunka ugu weyn ee la dhibtoon karaan bini'aadamka, dadka iyo dawladuhu. dawladda Soomaaliya iyadoo kaashanaysa dadkeeda waxay si adag uga shaqaynaysaa sidii loo dhisi lahaa mustaqbal xasiloon oo xor ka ah saboolnimo iyadoo la ilaalinayo badqabka bulshada. habka aan u marayno suulinta faqrigu waa inagoo abuurayna fursado dhaqaale iyo dib u habayn himilooyinkeena maaliyadeed iyo kuweena dhaqaale ee hagayso hay-adda lacagta adduunka si horraanta sanadka soo socda nalooga cafiyo deynta iyadoo loo marayo habka adduunka uu ku heshiiyey in dalalka aadka saboolka ah ay u maraan deyn cafinta ee loo yaqaano hibig. sida IMF-tu u dhigtay waxaan qabanay shaqo badan muddo gaaban. waxaan sii wadi doonaa inaan kordhino dakhliga gudaha ka soo xarooda, inaan horumarino hanaankeena miisaaniyadda iyo in nidaamkeena maaliyadeed uu noqdo mid daahfuran oo la isku halayn karo. waxaan si dhow ula shaqayn doonaa dhammaan saaxiibadeena muhiimka ah, saamileyda oo ay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed iyo hay-adaha dhaqaalaha adduunka si loo hubiyo deyn cafinta Soomaaliya. Financial institutions to secure debt cancellation for Somalia. geediga deyn cafiska Soomaaliya waxa ay soo waday muddo, waxa uu hadda joogaa heer gabagabo ah. deyn cafisi way soo socotay maanta waxaan ku jiraa maalmihii ugu dambeeyay bishan markay imika labaad timaado deynta waa la inaga cafinaya. now deyn cafinay maxaa tahay weeyaan ishu maxaa la sameynaya markii deynta la cafinayo? waxaa la sameynayaa shir baa la gelayaa, la yidhaha shirka ka wada hadalka deyn cafinta Soomaaliya. shirka deyn cafinta lafteeda waa decision point-ka la yidhaahdo February baa la bisha labaad baa in la shiro. maalinta qaraar baa la qaadanayaa Soomaaliya deynta laga cafiyo la yidhaahdo. maalinta halkaa la fadhiisto
ee la yidhaha Soomaaliya deynta laga cafiyo warwar dambe oo aad ka qabto deyn dambe oo taas laysla ogyahay ma jirto maanta la kansal garanaya maaha laakiin nin walba tiisi isaga dib u habaysanaya qolada baanku iyaga habaysanaya qolada bilateralku iyaga habaysanaya deyn dambe oo ka warwaraysa ma jirto haddaanad next day-ga aan deyn kala qaadan oo deyn meel ka dhicin wada shaqaynta wasaaradaha maaliyadda dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ayaa meel fiican soo gaarsiiyey sidii loo midayn lahaa dakhliga ka soo xarooda gudaha annagu quwadda waxaan saarnay wada tashi haddaanu nahay wasiirada maaliyadda wada tashi ayaan quwadda saaray khayraad hadduu noo yimaado inaan miiska wada fadhiisano ka heshiino ka wada hadallo wax isla garanno ayaan anagu ku shaqaynaa ama ha noqoto lacagaha kabka miisaaniyadda ama ha noqoto ka timaada muxuu haynaan badda ka timaada wixii meel nooga yimaado inaan ka wada fadhiisano ayaan runtii ku heshiinay waxaa kaloo ku heshiinay waxa shuruucda baarlamaankeenu labada aqal ay gudbinayaan ay ka shaqaynayaan inaan horta anagu soo lafagurno oo isla soo lafagurno oo anagoo kaashanayna komitiyada maaliyadda ee labada gole anagoo kaashanayna inaanu gobolada wasiirada maaliyadda iyo technical people koodana u yeedhno meel wada fadhiisano isla lafagurno meel baan ku wada soconay baan anagu heshiis ku nahay marka aad baan anagu u faraxsanahay halkaan taaganay haddaanu nahay wasaaradda maaliyadda iyo saaxiibada wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada qaybta ka federaalka la falgelidda dadweynaha iyo la wadaagidda macluumaadka maaliyadda dalkooda dhagaysiga talooyinkooda oo ay wasaaraddu hirgelisay ayaa ah guul kale oo xusid mudan maalintii wasaaraddan anima waxaan isi dhowr arrimood baa wax ka dhiman yihiin structureka wasaaradda waxaan is idhi dhowr meelood ba wax ka dhiman yihiin hal la hagaajiyo mid waxa weeye la xidhiidhka dadka Soomaaliyeed in la ogeysiiyo waxa communication la yiraahdo ama baahinta xogta iyo wararka aad haysayna dadka la kala sheekaysto kula ogaadaan oo dibadda ra'yigooda meel ku soo gudbiyaan yeeshaan waxa dabcan markaa inaan dhisno systemka la wadaaga shaqada aan hayno dadka Soomaaliyeed waxa kamid ah in halkan soo fadhiisto bishiiba kol mar oo dadka la hadlo waxa kamid ah in la yeero oo interview laga qaado oo aan wax la wixii madmadow ku jiro aan cadeeyo horta inaan anagu aan diyaar u ahay mar walba ya cidii doonaysay wax ka ogaato laana war la'aani waa col weeyaan in la diiwaan geliyo hantida qaranku leeyahay ee ku kala firiirsan gudaha iyo dibadda ma sahlanayn balse wasaaradda maaliyaddu waxa ay samaysay diiwaan uu ku cad yahay dhammaan hantida qaranka ee la diiwaan geliyey waxay ka kooban tahay inta ugu badan waxa weeyaan guriyo iyo xafiisyo iyo meelo kale oo dawladdu lahayd oo waxyaalo fara badan ku qaban jirtay dawladdu gaaraashiye lahayd dawladdu farmasiye lahayd dawladdu cusbitaalay lahayd iyo waxyaalo la xiriira dawladdu waxay lahayd iskuulo ayay lahayd dawladdu waxay lahayd aqal la galo oo shaqaalaha dawladda kala duwan galaan aqal madaxdu gashay lahayd guriyo kale oo dawladdu la wareegtay ayay lahayd oo bariyo hore dadka ka iibsatay oo interest nationka darteed loo iibsaday danta nationku galay loo iibsaday ayaa jiray oo waraaqoodii waxoodii dhan lahayo dawladdu beeray lahayd iyo dhul wax laga soo saaro ayay lahayd dawladdu warshaday lahayd warshadii heblaaya tii taraqaya tii baastada waxaasaa jiray dawladdu waxyaalo badan bay lahayd dawladdu xafiisye lahayd fara badan oo wasaaraddu waliba xafiisyo badan leedahay waxaasoo dhan markay dhibaatadu inagu dhacday horta way burbureen dadkii Soomaaliyeed qaxootiga ahaa galay dawladdu jaamacaday lahayd qaxooti baa galay markii dambana dadkii waxaaba ka gashay damacbaaba ka galayba markay dadkii meeshii degeen ee ku dhaldhaleen ee kuway dhaleen qaar kale sii dhaleen ee mid walba aabihii ka dhaxlay dadkii damac baa galay ama halkan ha noqoto dawladdu embassy lahayd iyo xafiisyo embassy ay lahayd oo adduunyada kale ku lahayd dawladdu Somali Airline bay lahayd oo iyaduna meelale dawladdu Central Bank bay lahayd meelale isaguna adduunyada kale ku leh wax wal oo maanta hanti dawladda halkan ay ku kooban yihiin
haddaba sanadka cusub ee 2020 maxaa mudnaan u leh wasaaradda maaliyadda? waxaa ugu horeeya in la xoojiyo oo la sii wado habkii dib u habeynta maamulka maaliyadda dalka iyo sidii loo maareyn lahaa hantida ummadda u soo xiroota looguna bixin lahaa meeshii loogu talagalay. waxaa qorshaysan in la horumariyo xiriirka lala leeyahay dadka Soomaaliyeed ee cashuuraha bixiya iyo in la fahamsiiyo wixii ay bixiyeen waddanka meeshuu soo gaarsiiyey oo ah in korodhkii ka soo xirooday cashuuraha waddanka laga ururiyo inuu sababay in aan soo gaarno meel la yidhaahdo Soomaaliya waxay ku socotaa waddo saxa in la horumariyo oo la fuliyo shuruucda maaliyadda, shuruucda iibka qaranka, shuruucda shirkadaha, wax alla wixii shuruuca ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay soo dhameeyeen madaxweynuhuna saxiixay ee sharci noqday ku dhaqankoodii iyo implementationkoodii in la fuliyo. waddo dheer baa ina sugaysa, laguma soo koobi karo waxa wasaaradda u qorshaysan. waxaa ka mid ah in la tayeeyo shaqaalaha wasaaradda. horta hawshan halkan taallaa aniga keliya iyo ma taalo, dad fara badan oo maanta liis haddaan qaata aanan ka baxayn ayaa ka shaqeeya. kow waa madaxweynaha waddanka, yani aragtidiisa ayaa lagu shaqeynaya, aragtida dowladdiisa iyo ra-iisul wasaarihiisa ayaa lagu shaqeynaya. anigu shaksiyan maanta halkan aan jooga berri ma joogay, waxaan uga mahad celinayaa labadooda habka maaliyadeed ay u wada siday wax u wadaan. number 2 dadka Soomaaliyeed ee had iyo jeer halkaa nagala soo hadlaya, ee halkaa toosiya nale, ee halkaas way qaloosan tahay le, ee halkaa waad ku mahadsantihiin le, ee nala falgelaya day in and day out maalin walba, ayagana waa mahad celinaya. yaa mahad baan ugu celinayna. waxaan mahad celinaa oo kale ganacsatada Soomaaliyeed. runtii ganacsatada Soomaaliyeed yaa oo muxuu ahaa inaan tallaabo weyn ka qaatay sidii ay dadka Soomaaliyeed nooga dhaadhicin lahaayeen, sidii ay u bixin lahaayeen cashuuraha iyo waxyaalaha kale. ayaan iyagana u mahad celinayaa. beesha caalamka ayaan u mahad celinayaa. dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay kuwooda badan ee wax haysta oo ay Yurub u badan tahay ayaa door weyn ka ciyaaray Soomaaliya in soo noolaato. dowladaha iyaga ah ee European Unionka ayaa horta qayb lixaad la ka qaatay. waxaan sii hoosta ka sii xariiqaya labada institution ee waaweyn ee banka adduunka iyo banka Afrika qayb weyn bay ka qaateen dib u dhiska shaqaalaheena iyo dib u dhiska waxyaalahan ku shaqeynayna. shaqaalaha wasaaraddan iyo wasaaradaha kale ayaan aad ugu mahad celinayaa. waxaan u mahad celinayaa dadkoo dhan, ciddii ka qayb gashay oo dhan. dalkani wuu jahaystay oo meel buu ku socdaa, ayaynaan simbiriraxanin.